waa qaybtii labaad ee qisadii Aamina Suldaan iyo Xasan Olol, ninkii Soomaaliga ahaa ee guursaday gabadha jinka ah. Qisadan qaybtii koobaad waxay ku dhammaatay Aamina Suldaan oo raggii ay isku qabiilka ahaayeen ku leh, aabbahay ayaa igu yidhi jin iyo insi wixii aad hesho soo kaxayso. Markaa wiilkaa yar baan soo helay ee insiga ah ee ma taaban kartaan. Kadibna waxay ku yidhaahdeen raggii, wiilkan yar buulkaa sii fadhiisto oo yaanuna soo dhex gelin inta aanu aabbaha arrintan usoo sheegayno oo aanu soo weydiinayno. Qisada qaybteeda labaad waxay ku bilaabantay sidan. Xasan Olol ayaa yidhi, dabadeedna buulkii baa laygeliyey, laakiin labada suul ayaan ku fadhiistay oo waxaan isleeyahay marka ay kaa fogaadaan towdheh oo jarka buurta iska tuur si aad u baxsato. Kadibna inta aan cabbaar hadalkooga dhegta u sii dhigay ayaan is idhi way kaa fogaadeen towdheh oo baxso. ilayn show buulkanowba gaadh baad iga tahay oo waardiye ayaad iga haysaaba. Kadibna markii aan orday ayuu buulkii igu soo booday oo uu futada dhulka igu dhuftay. Kadib waan yaabay, dabadeedna aniga oo fajacsan ayay igu soo noqdeen oo ay igu yidhaahdeen, oo ma baxsaad islahayd? Markaasi ayaan ku idhi, maya, ismaan lahayn baxso. Kadibna waa lay kaxeeyey. Kadibna waxa lay geeyey meel dayr leh oo ay kabda iyo cawsas ku wareegsan yihiin oo weliba iftiimaysa, isla markaana ay wax waliba yaaliin. Markii albaabka meesha lay soo taagay ayaan idhi, assalaamu calaykum. Waxay iigu jawaabeen, wacalaykum wassalaam. Markaasi ayaa laygu yidhi, soo soco oo suldaankii waa ka dhexda fadhiya ee salaan. Kadibna intaan kabihii iska bixiyey ayaan suldaankii gacan qaaday. Markaasi ayuu suldaankii furaashkii u fadhiyey inta uu cagihii laabtay agtiisa i fadhiisiyey. Wuxuuna yidhi, koob shaah ah oo bigays ah u soo shuba. Kadibna waa lay soo shubay, waanan cabbay shaahii, balse markii aan cabbay shaahii ayaan idhi, biyo aan cabbo ii soo shuba. Markaas ayuu suldaankii yidhi, biyo iyo caano ha la isugu soo shubo. Maanta oo dhan ayuu soconayay oo wuu beer xoormayaaye. Kadibna intii ayaan cabbay. Markaasi ayaan dhididay. Kadibna markii aan qaboobay ayuu suldaankii igu yidhi, waaryaa Xasan Olol. Markaasi ayaan is idhi, waa nin aabbaha Olol garanaya odaygani suldaanka ahi. Markaasi ayaan ku idhi, hee. Kadibna waxa uu igu yidhi, Aamina ma wada socoteen? Kadibna waxaan suldaankii ku idhi, Aamina ma gabadha ila socotay baa la yidhaahdaa? Markaas ayuu igu yidhi, haa. Markaasi ayuu igu yidhi, oo maxay ku soo tidhi? Markaasi ayaan ku idhi, waxay igu tidhi, reerkayaga caawa u sii hoyo oo ku sii raashin karso. Kadibna meeshaad ku socotay u sii ambabax. Dabadeedna suldaankii wuxuu la hadlay gabadhiisii oo halkan aloolka dabadiisa taagan oo uu ku yidhi, Aamina macaynkaasi baa arrintu. Kadibna Aamina waxay aabbaheed ku tidhi, aabe, si kale ayaanu igu soo raacaynin ninkani oo sidaasi ayaan ku soo kaxeeyey. Odaygii suldaankii ayaa haddana xaggaygii u soo jeedsaday oo igu yidhi, waar Xasan Olol, gabadhu way ku rabtaa ee adigu ma rabtaa? Markaasi ayaan is idhi, waar ma nimankii buulkooga aad ka baxsan kari weyday ayaad maya odhan karaysaa? Kadibna aniga oo baqanaya ayaan ku idhi, haa, waan rabaa ee aan reerkayagii xoolo kaaga doono. Markaas ayuu igu yidhi suldaankii, annaga xoolo nalama siiyo ee annaga ayaa bixinna, ee gabadhii ma rabtaa? Haa ayaan idhi dabadeedna. Kadibna suldaankii nin gadh weyn oo meesha fadhiyey oo uu Sheekh Cumar ugu yeedhay ayuu ku yidhi, Sheekh Cumarow, anigu gabadha aabbaheed ayaan ahaye, wiilku waa wiil yare, wakiil u noqo. Kadibna sheekhii ayaa igu yidhi, Xasanow, ma i wakiilatay? Markaa da'daydu 15 jir ayay ahayd. Haa ayaan ku idhi. Sheekhii ayaan wakiishay. Dabadeedna suldaankii iyo sheekhii ayaa gacmaha isa saaray.
oo wixii meher ahaan jiray dhameeyey. laakiin intii uu meherku socday ayaa aqal weyn oo qasri ah la dhisay. waxa kale oo lay keenay dhar aanan weligay arag oo xariir ah oo ay ka mid yihiin go' shaal ah iyo macawis abusarande ahaa, koodh iyo cumaamad. kadibna waxaa lay siiyey biyo aan ku soo maydho. kadibna markii aan soo maydhay ee aan soo labistay ayaan anigii isweydiiyey cid aan ahay. ilayn waxaan sitaa labis igu cusub oo aanan weligay xidhan. suldaankii ayaa 2 wiil ku yidhi alaabtiisa u qaada oo gurigiisa geeya. dabadeedna wiilashii ayaa i kaxeeyey oo gurigii geeyey. soo gal ayay igu yidhaahdeen. markii aan galayna waxaan arkay guri wada kaahaya, isla markaana aanu faynuus iyo laydh ama nal midna ka baxayn. kadibna aniga oo gurigii daadaawanaya ayaan maqlay shalaad iyo qasiidooyin nebi ammaan ah oo ay ka mid yihiin hooy nebi nuur allow, maxamed nebi magacsamow. markaas ayaan is idhi walle tii aamina ayaa la soo wadaa. kadibna aniga oo halkii taagan ayay aamino oo ay 2 gabdhood galbinayaan aqalkii dalaq soo yidhaahdeen. markaas ayay aamin iigu tidhi waar maxaa meesha ku taagay. markaasi ayaan aniga oo istiilaya ku idhi dee adiga ayaan ku sugayey. kadibna markaas ayay igu tidhi waa yahay. waxaanay iga bixisay maryihii aan sitay oo waxay iigu soo reebtay garan iyo macawis kali ah, waanay i fadhiisisay. laakiin markii aan fadhiistay ayaan si kaftan ah ugu idhi waadigan malxiisadda wata aan aniguna malxiis aan doonto. markaas ayay igu tidhi annaga ayaa kuu malxiis ah ee iimaanso. markii ay igu tidhi iimaanso, annaga ayaa kuu malxiis ahe anigu waa yahay ayaan ku idhi. laakiin markii aamino waxoogaha aanu sheekaysanaynay ayaa shanqadhii soo baxday. kadibna waxaa naloo keenay raashin lagu soo guray weel qori ah sida xeedhyaha oo kale. raashinkaasina waxa uu ahaa mid kala nooc ah. dabadeedna aniga iyo aamina iyo gabdhihii malxiisada ahaa ayaa halkii raashinkii ku wada cunay. kadibna ilayn waxaan ahaa nin maanta oo dhan waxba cunin oo gaajoonaya waxaan markiiba cabbay caano gadhoodh ah iyo hadhuudh isku jira. laakiin markii aanu raashinkii dhammaantayo wada cunnay ee weelkii la celinayay ayay aamino suldaan hilibkii ka reebtay jeeni iyo awlal. anigu raashinka iyo weelkaa cid keentay iyo cid weelka guraysa midna ma arko mana aqaano. intaa kadib aamina way i kaxaysay oo waxay i geysay halkii aanu seexanaynay. kadibna 2dii malxiisadood waa la fasaxay. waxaanay nagu yidhaahdeen nabadgelyo, ilayn aroos lagamana raago. intaasi kadibna aamina waxay i siisay go-aan guntado, isla markaana macawistii iyo garankii waxay ku dartay maryihii ay markii hore iga bixisay. iyaduna wixii dahab ay xidhnayd ayay iska bixisay. dabadeedna waanu iska sheekaysannay. markaas ayay igu tidhi xasanow, aabbaha iyo hooyada aniga ayaa caawa kaa xiga, adiguna sidoo kale adiga ayaa iga xiga aabbahay iyo hooyaday, waayo nin iyo naagtii ayaynu noqonnay. markaa waxaad yeeshaa horta meeshan aad hadda joogto bismilayso. ta kale waxaan kuugu bishaaraynayaa marka ay da-daadu gaadho 25 jir waxaanu ku siinaynaa koofiyad. koofiyadaasi oo ah mid aad adigu dadka arkayso laakiin aana iyagu ku arkayn marka aad koofiyadaas xidhato. waxa kale oo aanu ku siinaynaa fargal aad farta gashato. fargalkaasna waxaad u isticmaalaysaa marka aad meel damacdo inaad tegtid. fargalkaasi ayaad xoqaysaa. kadibna waxaad arkaysaa adiga oo meeshii aad doonaysay taagan, meel kasta oo ay ahaataba. waxaa kale oo aanu ku baraynaa inta dhir arlada ku taal iyo nooca daawo iyo dabiib ee ay dhirtaasi leeyihiin. waxa kale oo aanu ku baraynaa inta af ee adduunka lagaga hadlo, haddii ay tahay af islaam iyo haddii ay tahay af gaalo. haddii aan wakhtigaa caqli leeyahay wixii ay aamina ii sheegaysay waan ka faa'iidaysan lahaa. laakiin waxa ay ii sheegayso oo dhan riwaayad ayay ila ahayd.
waayo inta aan aqoontaas oo dhan ka barto oo aan kala hadho ayaan maanta ka faa'iidaysan lahaa. Arrinta sida ay doonto ha ahaatee, aniga iyo Aamina habeenkaas oo dhan waxaanu ahayn qoys cusub oo nolosha ku midoobay. La soco qaybta saddexaad oo ah qaybtii ugu xiisaha badnayd berri xilligan oo kale, insha Allah. Saaxiibayaal, qisadan waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiraabeel ah. Fadlan la wadaag asxaabtaada Facebook iyo WhatsApp si ay kuula dhageystaan qisadan yaabka badan. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin dhegaysigiina. Waxaan idin leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh.